aqbal murugada. Farxadda ayaa la weydiiyey halkee ayaad degan tahay. Waxay dhahday waxaan degannahay qulubta dadka ku ganacsan qadarka Alle. Aqbal noloshaada. Ma og tahay in ka hor inta adduunkan la abuurin la qoray wax walba oo adduunkan ka dhacaya. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay wuxuu Alle qoray 50,000 oo sano ka hor inta uusan abuurin samooyinka iyo dhulka waxa uu u qadaray khalqigiisa dad iyo dunyo. kumanaan sano kadib markaad dhalatay waxaa ku dhalay hooyo iyo aabbe fiican, waxaad timid adduunkan iyagoo kugu faraxsan balse adigu aadan rabin oo aad ka oynayso. kadib markii aad dhalatay waxaad timid meel aadan horay u arag, waa sababta aad uga oyday, waayo ma aadan garanayn waxa dhacaya iyo waxa dhici doona, ma aadan ka warqabin waxay noloshu tahay, ma aadan ogeyn waxa xitaa aad adiga tahay, balse waxaa dhacay aqbalaad aad aqbashay adduunka. markaas kadib waad aamustay oo kama aadan oynin. marka aad aqbashay kadib adduunka waa lagugu farxay iyadoo ay dadku ku agjoogeen oo masha Allah ay leeyihiin, laguna bishaaraynayo farxad waa lagu soo dhoweeyey. kadibna waad weynaatay oo caqli ayaad yeelatay, waxna waad kala garatay, waxaad la kulantay markaas kadib maalmo kala duwan oo ay ku jiraan maalmo farxad badan iyo kuwo xanuun, iriiri iyo welwel badan. markaas oo kale waxaad haysataa inaad laba arrimood kala dooratid. hal, in aad ku raali noqoto dhacdada, xaaladaha aadan waxba ka qaban karin. kuwa aad wax ka qaban kartana aad wax ka bedeshid oo aad qaadatid mas'uuliyadeeda. 2, in aad naftaada ku mashquuliso murugada dhibaatooyinka ku haysta, naftaadana muujiso ciil iyo cabasho, taas oo laga yaabo inay aakhirka xanuun maskaxeed oo ilaa waali ku gaarsiin kara. ha u qaadanin inaan kuugu waaninayo in aad musiibo kasta oo ka hortimaada u hoggaansanaatid. maya. sidaas ma ahan, ee waa in dhacdada la baadho oo la fiirsho inay xal aanay leedahay iyo in kale. haddii ay xal leedahay waa in albaab kasta la garaaco ilaa aad ka helayso xalkeeda. haddii mushkiladdu xal lahayn maxaad isugu daalinaysaa wax aanad heli karin oo awooddaada ka baxsan, taasoo la mid ah waxaan jirin oo kale. ogolaanshaha waa marka dhacdadu tahay wax ka baxsan awoodeenna. aqbalka shay dhib leh waxay yaraysaa dhibaatadii uu shaygaasi qofka ku yeelan karay. haddii aadan aqbalin waxaa siyaadaya dhibaatadii shaygaas. dhibaato kasta oo qofka ku timaada saamaynteedu iyo waxyeeladeedu waxay ku xidhan tahay intaad ka aqbasho ama aad ku qanacdo. sidaa daraaddeed waxaa muhiim ah in qofku ku dadaalo siduu dhibaatada ku aqbali lahaa. aqbalka shay dhib leh waxay yaraysaa dhibaatadii uu shaygaasi qofka ku yeelan karay. aqbalaadu waxay ka dhigan tahay inaad diyaar u tahay inaad noloshaada hore u socotid. aqbal qadarka Alle. nin ayaa la weydiiyey qosolkiisa, wuxuu yidhi waxaan ka baqaa inaan murugoodo ayada oo arrintaydana ay ku jirto gacanta Alle. mar walba waxaad dhahdaa naguma dhacyo ilaa wuxuu Alle noo qoray maahane. waxaa loo baahan yahay qadarka in lagu raali noqdo, maxaa yeelay waxay ka mid tahay ku raali noqoshada rabinimada Alle. waxaana looga baahan yahay qof walba in uu raali ku noqdo waxa uu Alle qadaray, sababtoo ah wax walba uu Alle qadaray waa khayr, cadaalad iyo xikmad. qofkii naftiisu ku degnaato wixii asiibay in aysan dhaafi lahayn, wixii dhaafayna inaysan ku dhici lahayn, waxaa noloshiisa ka yaraanaya ama ka dhammaanaya wareer, cabsi iyo murug, oo kama murugoonayo wixii dhaafay, kamana cabsanayo mustaqbalka. sidaas ayuuna ku noqonayaa dadka kan ugu xaalad wanaagsan, uguna qalbi degan. Alle wuxuu leeyahay ma dhacayo musiibo idan Alle maahane, ruuxii rumeeyo Alle wuu hanuuninayaa qalbigiisa, Allena wax walba ogaal buu u leeyahay. qofkii aqbala qadarta Alle markaas ayuu Alle qalbigiisa dejinayaa. haddii maanta oo dhan aad ka murugta arrimo aadan waxba ka qaban karin, waxaa kaa faydaysanaya shayddaanka. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ku dadaal wax ku anfacayo, Allana kaalmayso, hana caajisin. haddii ay wax ku asiibaana ha dhihin haddaan saas samayn lahaa sidaa bay arrintu ahaan lahayd, laakiin dheh Alle ayaa qadaray waxa uu doonayna sameeyey. haddiina dhihida haddii aan saas waxay furtaa camalka shayddaanka.